sidee tihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idiin soo koobo filim lagu magacaabo No One Will Save You. filimku wuxuu ku bilaamayaa gabadh lagu magacaabo Bareen oo kaligeed degan guri aad uga fog agagaarka magaalada. inkastoo ay dhinteen waalidiinta dhalay Bareen, haddana Bareen ma haysan qof kale oo u jooga adduunka. dantuna waxay ku qasabtay inay kaligeed ku noolaato hal guri. inkastoo Bareen hooyadeed intii aysan dhiman ay weligeed ku hamin jirtay inay farshaxan ka samaysay qaabka nashqada ee u taala magaaladu, haddana Bareen waxay go'aansatay in iyadoo ay dhammaystirto riyadii ay lahayd hooyadeed. ilaa aakhirkii Bareen ay ku dhammaystirtay inay ku samaysay qaabka nashqada ay u taala magaaladu. intaas waxaa dheer Bareen waxay nafteeda ku samaysay isbedelo kale, sida inay tosho dhar u gaar ah dumarka, iyadoo Bareenna dakhliga uga soo xarooda shaqadan ay ku maareyn jirtay inay ku kafayso nolol maalmeedkeeda oo dhan. maalin maalmaha ka mid ah markii Bareen ay dhammaysay dhar ay u talaysay macmiil ka soo dalbaday, kadibna ay go'aansatay inay ugu geyso goobta macmiilkaasi uu degan yahay. Bareen waxay banaanka gurigeeda ku aragtay goobo qariib ah oo lagu sameeyay dhulka. inkastoo Bareen ay isku dayday inay tuumbada biyaha ay ku masaxdo goobada ku taala dhulka, haddana Bareen waxay goobada ka masixi kar weeday dhulka. kadibna waxay soo gashay gudaha baabuurka ilaa ay u soo kacday dhinacii ay ka xigtay magaaladu. intii Bareen ay ku sii guda jirtay jidka, Bareen waxay la sii kulantay wiil ay jecleyd oo yaraanteeda ay saaxiib ahaan jireen. inkastoo Bareen ay si qurux badan u salaantay wiilka, haddana waxaa la yaab ahayd in wiilkaasi uu aamusnaan kaga soo dhaqaajiyay goobta, iyadoo Bareenna ay indhaha la taagayso waxa ka khaldan wiilka. intaas kadib markii Bareen ay gudaha u soo gashay magaalada, Bareen waxay weydiinaysay su'aalo tiro badan oo ku saabsan sababta marka magaalada ay soo gasho dadku uga kala ordayaan. inkastoo Bareen ay aakhirkii alaabtii ay waday u keentay macmiilkii ka soo dalbaday, Bareen waxay sidoo kale soo booqatay xabaashii ay ku aasnayd hooyadeed, iyadoo Bareenna ay saacado badan iska dul fadhida xabaasha hooyadeed. waxaa la yaab ahayd markii Bareen ay go'aansatay inay ka soo dhaqaajiso goobta. waxay isku dayday inay salaanto dad badan oo wakhtigaasi ku sugnaa xabaalaha, inkastoo uusan jirin hal qof oo xitaa salaanta ka qaaday Bareen. haddana Bareen waxay si degdeg ugu soo kacday dhinaca baabuurka, kadibna waxay jidka ku aragtay saaxiibkeedii carruurnimada labadiisa waalid. inkastoo Bareen ay iska qarisay labada waalid, haddana waxaan ogaanaa in Bareen ay mamnuuc ka tahay inay timaado magaaladu, iyadoo Bareenna ay ka niyad jaban tahay sida ay ula dhaqmayaan dadku. Bareen waxay aakhirkii dib ugu soo laabatay gurigii ay ku noolayd, kadibna waxay bilowday inay warqad u soo qorto saaxiibkeed si ay wax uga ogaato markii uu aamusnaanta uga soo dhaqaajinayay goobta. wakhtigaas guriga Bareen waxay yimid baabuurka kala gudbiya fariimaha, kaas oo Bareen siiyey kartoon yar oo looga soo diray dhinaca magaalada, iyadoo kartoonna uu ku jiro nashqad laga soo sameeyey iskuulkii yaraanteeda ay soo dhigin jirtay Bareen. maalintaas oo dhan Bareen waxay bilowday inay badsato cabitaanka, iyadoo sidoo kale ku dhex ciyaaraysa gudaha guriga. Bareen waxay aakhirkii dhammaystirtay warqaddii ay u qoraysay saaxiibkeed, iyadoo u sheegaysay inay u xiistay wax badan. laakiinse waxaan aragnaa in guriga Bareen ay yaalaan sawiraan kala duwan oo carruurnimadoodii ay soo wada galeen saaxiibkeed. wax yar kadib markii la soo gaadhay habeenkii ku xigay, Bareen waxay si nabad ah u seexatay qolkeeda jiifka, iyadoo aan ka warqabin in nalalka gurigu ay isbaqbaqtiinayaan. laakiinse 5 daqiiqo maysan qaadan markii Bareen ay ku soo kacday cod cabsi leh oo ka imaanaya banaanka dhismaha. isla markiiba Bareen waxay dariishada ka egtay waxa jooga banaanka. inkastoo guriga banaankiisu uu ahaa mid cidlo ah, haddana Bareen waxay bilowday inay u soo daadegto qaybaha hoose ee dhismaha ilaa ay ku warheshay inaysan shaqaynayn korontada gurigu. intaas kadib Bareen waxay ka sii naxday markii ay la kulantay iyadoo uu furan yahay albaabka gurigu, taas oo iyaduna cabsi saa'ida ku sii abuurtay Bareen. intaas kadib Bareen waxay maqashay cod ka imaanaya banaanka dhismaha, codkaas oo weliba u ekaa sidii bahal dadcun ah oo kale. iyadoo Bareen ay indhaha la taagaysa sida ay wax u jiraan, Bareen waxay si toos u aragtay baal ku dhex jira dhismaha, kaas oo weliba jabaq la'aan ku dhex maraysanaya dabaqa koowaad ee dhismaha. isla markii Bareen ay bilowday inay dib ugu soo laabato qolkeeda jiifka, dhibtu waxay ka dhalatay jabaqda ka imaanaysa cagaha Bareen, taas oo iyaduna soo jeedisay dareenka baalkii ku dhex jiray dhismaha. isla markii Bareen ay iska bixisay kabaha, kadibna ay bilowday in iyadoo naxsan ay dib ugu soo laabato qolkeeda jiifka. waxaan aragnaa in baalka ku dhex jira dhismuhuna uu arkay Bareen. intaas kadib Bareen waxay si degdega ugu soo oroday dhinaca qolkeeda jiifka, iyadoo weli uu daba socdo baalkii ku dhex jiray dhismuhu. isla markii Bareen ay gudaha u soo gashay qolkeeda jiifka, Bareen waxay bilowday inay raadsato wax ay isku difaaci karto, kadibna waxay shandad ka soo hoos saartay sariirta. intii Bareen ay ku mashquulsanayd baaritaanka shandadan, Bareen
bareen waxay ku soo jeesatay jabaqda ka imaanaysa jaranjarada dhismaha taas oo muujinaysay in dhab ahaantii baalku uu soo koray jaranjarada dhismaha intaas kadib markii bareen ay ku soo dhuumatay agagaarka sariirta waxaan aragnaa in baalkuna uu baaritaan guud ku samaynayo qolka iyadoo xitaa baalkuna uu ku soo dulbooday sariirta ay ku hoos dhuumanaysa bareen inkastoo bareen ay ku badbaaday dhuumashada ay ku soo hoos dhuumatay sariirtu haddana bareen waxay aad ula sii yaabtay markii ay si toos u aragtay cagaha baalka taas oo muujinaysay in dhab ahaantii baalkani uusan ahayn wax ku nool dhulka intaas kadib markii baalku uu dhowr daqiiqo dhex taagnaa qolka wuxuu bilaabay inuu sameeyo codad kala duwan oo cabsi saa'ida ku sii abuuray bareen kadibna wuxuu bilaabay inuu hal mar ka soo boodo dariishada dhismaha intaas kadib bareen waxa ka soo hoos baxday sariirtii ay ku hoos dhuumanaysay kadibna waxay bilowday in si dhuumasho leh ay u eegto muuqaalka wejiga ee baalka iyadoo si degdegana u xidhaysa dariishadii uu ka baxay baalku inkastoo baalku uu u soo baxay banaanka dhismaha haddana bareen waxay u soo oroday si ay u xidho albaabka dhismaha laakiinse bareen waxay dareentay jabaqda ka imaanaysa saqafka sare ee dhismaha taas oo muujinaysay in dhab ahaantii baalkuna uu ku dul wareegayo dhismaha laakiinse dhibta ugu weyn waxay ka sii dhalatay markii bareen iyadoo naxsan ay soo xidhay albaabka dhismaha waxaa la yaab ahayd markii dhammaan qalabka elektarooniga ee yaala gurigu ay hal mar bilaabeen inay si wada jira u wada shidmaan iyadoo bareen ay ku dawaqsan tahay inay fahanto sida ay wax u jiraan bareen waxay isla markiiba u soo oroday dhinaca telefoonka laakiinse markii ay bilowday inay wacdo nambarka gargaarka degdega waxaa la yaab ahayd markii telefoonkuna uu bilaabay inuu u qayliyo si xun kadibna ay ku sii xigtay in wax aan la arki karin uu dariishada ku soo jabiyay bareen intaas kadib bareen waxay la kulantay iyadoo talaagadu ay si iskeeda u furfurmayso taas oo runtii muujinaysay in dhab ahaantii waxa ka dhacaya guriga oo dhan uu maamulayo bahalku iyadoo bareen ay nafteeda la ordayso waxay bilowday inay ku soo dhuumato agagaarka talaagada iyadoo weliba dareemaysa cabsi saa'ida oo ku sii kordhaysa intaas kadib bareen waxay si lama filaana u aragtay iyadoo baalku uu ku mashquulsan yahay telefoonkii yaalay guriga laakiinse isla markii baalku u soo jeestay dhinaca bareen waxay iyadoo naxsan dib ugu soo laabatay goobtii ay ku dhuumanaysay laakiinse arrinta aadka u naxdinta lihi waxay ahayd markii baalku uu xagga sare ka soo eegay bareen taas oo bareenna ku qasabtay inay si degdega ugu soo baxsato dabaqa sare ee dhismaha ilaa aakhirkii bareenna ay madaxa ku dhufatay albaabka dhismaha taas oo sababtay in xaaladda bareenna ay noqoto mid aad u xun intaas kadib markii bareen ay isku dayday inay ka dhuumato baalka waxaan aragnaa iyadoo baalku si tartiib u daba socdo bareen isagoo awooddiisa ku kantaroolaya wax kasta oo yaala guriga intaas kadib baalku wuxuu awooddiisa ku soo jiitay bareen oo taalo dhulka laakiinse dhibtu waxay ka dhalatay markii bareen ay si lama filaana u dishay baalka taas oo sababtay in baalkuna isagoo miid ah uu ku soo dhaco dhulka dhacdadaas kadib bareen waxay habeenkii oo dhan dul fadhiday meydka baalka ilaa laga soo gaadhay subaxnimadii ku xigtay bareen waxay meydka baalka ku dabooshay maro kadibna waxay bilowday inay mar kale isku dayday inay wici karto booliiska laakiinse bareen waxay la kulantay inuunba shaqaynayn telefoonku xitaa marka lagu daro qalab walba oo elektaroonig ah oo yaala gurigu isla markiiba bareen waxay soo aaday dhinaca baabuurka laakiinse waxay ka sii niyad jabtay markii ay la kulantay inuunba shaqaynayn baabuurku intaas kadib bareen waxay dhowr daqiiqo oo nasasho ah ku dhex qaadatay baabuurka kadibna waxay dib ugu soo laabatay dhinaca guriga iyadoo iska dhaqaysa jugta dhiiggii ka soo gaadhay baalka intaas kadib markii bareen ay dhammaysatay labiska waxay kursi ku xidhay albaabka hore ee dhismaha maadaama baalku uu xalay soo jabiyey albaabka hore ee guriga isla markiiba bareen waxay u soo baxday banaanka dhismaha kadibna waxay baaskiil u soo kaxaysatay dhinaca magaalada intii bareen ay ku sii guda jirtay jidka waxay ka naxday markii ay la kulantay baabuurkii shalay u keenay fariinta boostada kaas oo u muuqday in baalku uu dhibaato xun soo gaadhsiiyey baabuurka iyadoo bareen ay ku mashquulsan tahay baabuurka waxay ka sii naxday markii ay haddana la kulantay iyadoo la burburiyey gurigii ay degganaayeen qoyska saaxiibkeedii ay jeclayd laakiinse arrinta aadka u la yaabka lihi waxay ahayd markii bareen ay bannaanka guriga saaxiibkeed ku aragtay goobo la mid ah midii ay ku aragtay agagaarka gurigeeda oo kale isla markiiba bareen waxay soo aaday dhinaca saldhigga booliiska kadibna waxay saldhigga kula kulantay waalidiinta saaxiibkeed taas oo wiilka hooydii ay isla markiiba candhuuf wejiga kaga tuftay bareen iyadoo u sheegaysa inaysan mar dambe soo hor istaagi karin maalintaas bareen waxay iyadoo ooyeysa ka soo baxday saldhigga booliiska laakiinse waxaa la yaab ahayd markii bareen ay si lama filaana ugu xanuunsatay jidka iyadoo aysan jirin cid bareen ka caawinaysa xaaladda xun ay ku jirto
maalintaas waxaan aragnaa in guri walba oo ku yaala magaalada ay ku hortaalo calaamad la mid ah midii aanu bilowga filimka ku soo aragnay guriga Bareen, taas oo si cad u muujinaysa in waxaan dhacayo oo dhan uu ka dambeeyo baal ka yimid cirka oo dadkuna aysan ka warqabin. maalintaas markii Bareen ay qaadatay waqti nasasho oo ku filan, Bareen waxay soo fuushay mid ka mid ah basaska u kala gudba magaalooyinka. laakiinse arrinta la yaab kale waxay ahayd markii Bareen ay ku dhageen qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa basku, iyagoo u sheegaya inay ka yimaadeen meero ka baxsan adduunka. Bareen waxay iyadoo cabsanaysa iska tuurtay ninka, kadibna waxay bilowday inay ku dhex guurguurato baska iyadoo welina uu daba socdo ninku. waxa aadka u sii la yaab kalehina waxay ahayd markii dhammaan rakaabku ay bilaabeen inay isku dhex qulquluuciyaan baska sidii in jidhkooda oo dhan laga maamulayo goob kale. wax yar kadib markii Bareen ay orod uga soo baxsatay baska, waxay orod kale ku timid kiniisad xidhan oo ku taalay gudaha kaynta. kadibna waxay aragtay xabaalo ku yaalay agagaarka kiniisadda. isla markii Bareen ay u soo kacday dhinaca xabaalaha, waxaan ogaanaa in xabaashan ay ku aasan tahay Bareen saaxiibteedii ugu fiicnayd, taas oo weliba Bareenna ay sabab u noqotay dhimashada ku timid saaxiibteed, maadaama asal ahaan gabadhaas ay dhaleen qoyska wiilkii ay jeclayd Bareen. maalintaas kadib waxaan ogaanaa in sababta dadka ku nool magaaladu ay u takoorayaan Bareen ay tahay in Bareen ay geysatay mid ka mid ah dilalka ugu foosha xun waddanka, iyadoo xitaa waalidiinta dhalay gabadhaas ay dishay Bareen ay cadaawad xun u qaadeen aragtida Bareen. intii maalintaas Bareen ay dul taagnayd xabaasha saaxiibteed, Bareen waxay hal mar la kulantay daruuro madow oo isugu yimid dhinaca cirka, kuwaas oo si cad u muujinayay in dhulka ay ku soo aadan yihiin shisheeyuhu. naxdin iyo cabsi darteed markii Bareen ay ka soo oroday goobta, waxaan aragnaa in shisheeyuhu uu wax yar u soo jiro dhulka, inkastoo aakhirkii Bareen ay timid gurigii uu ku noolaa saaxiibkeed. Bareen waxay aad ula yaabtay markii ay la kulantay dad badan oo gacmahooda u taagaya dhinaca cirka, kuwaas oo aad moodo in jidhkooda oo dhan uu la wareegay shisheeyuhu. isla markiiba Bareen waxay dib ugu soo laabatay gurigii ay ku noolayd, kadibna waxay la kulantay in meydka bahalkii ay dishay uu weli dhex yaala dhismaha, kaas oo weliba afkiisa uu ka soo baxay dareere u muuqda sidii inuu yahay dhiig oo kale. intaas kadib Bareen waxay u soo baxday banaanka dhismaha, kadibna waxay si fiican u eegtay dhinaca cirka, iyadoo Bareen ay fahansan tahay in shisheeyuhu uu weerar kale ku soo qaadi doono. Bareen waxay go'aansatay inay samayso isku daya ay isku badbaadin karto, iyadoo hore u diyaarsanaysa wax walba ay isku difaaci karto. wax yar kadib markii la soo gaadhay saqdii dhexe, waxaan aragnaa iyadoo masaabiirtu ay ka soo daadanayaan alwaaxa guriga. isla markiiba waxaa guriga xoog ku soo galay iftiinka shisheeyaha, kadibna wuxuu bilaabay in iftiinkaasi uu soo jiito meydkoodii dhex yaalay dhismaha, iyadoo Bareenna ay cabsi saa'ida ka qabtay inay dhibaato soo gaadhsiiyaan shisheeyuhu. Bareen waxay isla markiiba ku soo dhuumatay gudaha dhismaha, iyadoo weli uu daba socdo mid ka mid ah shisheeyuhu. inkastoo Bareen ay ka soo dhuumatay baalka ku jira dhismaha, haddana Bareen waxay waddo ay ku badbaado u aragtay inay disho baalka, laakiinse dhibtu waxay ka sii dhalatay in asal ahaan baalka uu ka warhayay markii Bareen ay ku soo qaadaysay weerarka. kadibna wuxuu awooddiisa ku kantaroolay maqaska Bareen ilaa Bareenna uu ku kalifay inay ku soo dhacdo dhulka. intaas kadib baalku wuxuu arkay sawir ay ku wada jiraan Bareen iyo saaxiibteedii dhimatay, iyadoo Bareenna ay ka soo baxsanayso gudaha dhismaha. baalku wuxuu awooddiisa ku akhristay waxa ka dhaxeeya Bareen iyo saaxiibteed, ilaa aakhirkii markii Bareen iyaduna ay soo gashay dabaqa sare ee dhismaha, ay iyaduna ka sii naxday markii ay la kulantay baal kale oo ku jira dabaqa sare ee dhismaha. isla markii baalkaasi uu weerar ku soo qaaday Bareen iyaduna waxay gacanta ka qaniintay baalka, kadibna waxay wejiga kaga shubtay biyo kulul ay u sii diyaarsatay hub ahaan. intii xaaladaas lagu guda jiray, baalku wuxuu mar kale albaabka dhismaha ku soo jabiyey Bareen, iyadoo Bareenna ay ku adag tahay inay ka baxsato baalka kula jira dhismaha. Bareen waxay aakhirkii ul garabka ka gelisay baalka, kadibna waxay qoortiisa ku jabisay albaabka kabadhka ee dharka, iyadoo si dhib badan ugu guulaysatay inay ku disho mid ka mid ah labada bahal. isla markii Bareen ay ka soo booday dariishada dhismaha, Bareen waxay ka sii naxday markii ay la kulantay baal kale oo ku sii sugayay banaanka dhismaha, kaas oo weliba lahaa lugo iyo gacmo aad uga dhaadheer bahalada kale. iyadoo Bareen ay ku dawaqsan tahay inay fahanto sida ay wax u dhacayaan, waxaa Bareen madaxa ka qabtay mid ka mid ah raggii uu jidhkooda kantaroolaya baalku, kaas oo bilaabay in Bareen uu u soo jiito dhinaca baalka. intaas kadib waxaa goobtay mid gaadiidka shisheeyaha, kaas oo bilaabay in Bareen uu ka qaato dhulka. inkastoo Bareen ay ninka u tuurtay dhinaca shisheeyaha, haddana waxa la yaab ahayd markii shisheeyuhu uu dhulka ka qaatay ninka, in shisheeyuhu uu hore ka aqoonsaday inuusan ahayn qofkii ay u socdeen. markaas oo Bareenna ay fahantay in dhab ahaantii shisheeyuhu ay u socdaan iyada oo keliya. intaas kadib Bareen waxay ku soo dhuumatay gudaha baabuur
baabuurka iyadoo weli baalku isku dayay inuu qabto Bareen. Waxa la yaab ahayd markii Bareen ay dab qabadsiisay haanta shidaalka ee baabuurka, taas oo sababtay in baalkuna uu ku dhex dhinto gudaha baabuurka. intaas kadib Bareen waxay si degdeg ah ugu soo laabatay dhismaha iyadoo weli bahal kale uu daawanaya xasuusaha Bareen. Bareen waxay isku dayday in si dhuumasho leh ay u disho baalka, laakiinse waxaan aragnaa in dhab ahaantii baalku uu ka warhayo weerarka Bareen. kadibna wuxuu Bareen ka soo dhex saaray derbiga dhismaha. inkastoo Bareen aysan soo gaadhin dhibaato aad u weyn, haddana baalku wuxuu bilaabay inuu iftiin cas uu ku shido guriga, kaas oo sabab u noqday in Bareen ay ku qolasho bartii ay taagnayd. intaas kadib baalku wuxuu afkiisa ka soo saaray wax leh lugu aad u fara badan, kadibna wuxuu afka ka geliyay Bareen oo ku qolashay bartii ay taagnayd, ilaa aakhirkii baalkaasina uu dhuunta ka istaagay Bareen. isla markiiba Bareen waxay ku soo kacday iyadoo ku jiifta sariirta, kadibna waxay fahantay in wixii afka ka galay uu sabab u noqday xaaladda ay ku jirta hadda, kaas oo sabab u noqday inuu la wareegay kantaroolka jidhka Bareen. intaas kadib markii Bareen ay u soo kacday inay baadho qaybaha kale ee dhismaha, Bareen waxay aad ula yaabtay markii ay la kulantay saaxiibteedii ay dishay. kadibna waxay isku dayday inay weydiisato raaligelin, laakiinse markii Bareen ay ku wareeshay inay keliya ku jirto riyo, Bareen waxay afka iska gelisay gacanta ilaa ay iska soo saartay wixii uu afka ka geliyay baalku. isla markiiba Bareen waxay ka soo laabatay riyadii ay ku jirtay, kadibna waxay bilowday inay soo qabsato bahalkii ay ka soo saartay afka. laakiinse waxa la yaab ahayd markii waxaas ay isku bedeleen sida Bareen oo kale, kadibna iftiin cagaaran uu ka yimid dhinaca cirka, kaas oo dhulka ka qaatay jidhka cusub ee u eg Bareen. maalintaas waxaan ogaanaa in runtii dhacdadani ay ka turjumayso in bahalkaas afka ka galay Bareen uu sabab u noqday in jidhka Bareen uu ka saaro wax kasta oo xun oo Bareen ay hore u soo samaysay. habeenkaas waxaan aragnaa inay jiraan gaadiid badan oo taagan cirku, kuwaas oo dhammaantood hal mar bilaabay inay ka soo tagaan adduunka, maadaama gaadiid walba uu hadda dhammaystay shaqadii uu u yimid dhulka. dhacdadaas kadib Bareen waxay ku soo kacday iyadoo hareeraha ay ka xigaan shisheeyo fara badan, kuwaas oo mid ka mid ah uu bilaabay inuu fartiisa madaxa ka saaro Bareen. isla markiiba Bareen waxay is aragtay iyadoo ku dhex jirta riyo, kadibna waxay aragtay hooyadeed iyo iyada oo yar oo ku sugan gurigii ay deganaayeen. intaas kadib markii Bareen ay u soo baxday bannaanka dhismaha, waxay la kulantay booliis tiro badan oo ku sugan bannaanka dhismaha. maalintaas oo sida muuqato u beegneed maalintii Bareen ay dishay saaxiibteedii ugu qaalisanayd. kadibna waxaa layna tusaa sida maalintaas Bareen ay ku dishay saaxiibteed, maadaama maalintaas Bareen iyo saaxiibteed keliya uu dhex maray muran, taas oo sabab u noqotay in Bareen ay si lama filaana dhagax madaxa uga dhufato saaxiibteed. maalintaas markii shisheeyuhu uu ogaaday sida ay wax u dhaceen, keliya waxay go'aansadeen in Bareen ay la kulansiiyeen saaxiibteedii dhimatay, kadibna ay Bareen dib ugu soo celiyaan adduunka dhabta. dhacdadaas kadib markii Bareen ay ka soo kacday dhulka, waxay awoodi kari weyday inay xitaa wax ka xasuusato sidii ay u dishay saaxiibteed, weliba xitaa waxay ilowday inay la soo kulantay shisheeyaha. maalintaas wixii ka dambaysay, Bareen waxay u bilaabantay nolol aad u farxad badan, iyadoo u muuqatay mid ka duwan midii ay ahaan jirtay dhowr maalmood ka hor. filimkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa iyadoo dadka ku nool magaaladu ay si qurux badan u salaamayaan Bareen, taas oo muujinaysay in shisheeyuhu uu dhammaan dadka ka saaray qaybta xasuusta, iyadoo xitaa Bareenna ay markii ugu horeysay la ciyaaraysa wiilkii ay jeclayd. muuqaalkii ugu dambeeyey waxaan ku aragnaa iyadoo gaadiidka shisheeyuhu ay weli dul marayaan magaalooyinka, iyagoo la socda dhacdo kasta oo xun oo ka dhacda dhulka dushiisa. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyey. haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahad celinayaa dhegaysigaaga iyo daawashadaada wacan. haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow. hanay loobin inaad like noo tiraahdo muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale ah uu gaadho.